assalaamu calaykum waa idin salaamay saaxiibada khaaliga ku soo dhowaada muuqaalkeena maanta runaantii muuqaalkan waxaan kula wadaagi doonaa maanta sida aad u abuuran karto janal youtube kaasoo noqonaya mid horumar bilaaran aad ka samayn karto runaantii youtube waa aalad lacag laga sameeyo dhalinyaro fara badan ayaa lacag ka samayso maanta dunidaan ku nool balse dadka qaar taasi ma aaminsana balse waxaan ku leeyahay midaasi waa dhab oo ma jirto cid wax bilaash ah ku bixinaysa dadka maanta youtube soo dhigaya dhammaantood ama muuqaalada samaynayo waa dad lacag ka sameeya meel aynan dani kugu jirin ma jirto cid joogaysa cid weliba waxay raadinaysa waa lacag sidoo kale adigan waxaad rabtaa inaad samaysa lacag balse ugu horeen inta aad youtube samaysanin sharuudo ayuu leeyahay sharuudihiisna waxaan kaga soo hadlay muuqaalkaas waxaan idin soo dhigi doonaa qaybta linkiga insha allah halkaas ayaad ka soo daawan doontaan sharuudihiisa balse ma doonayo qaybtan inaan kaga hadlo sharuudaha iyo waxyaabaha youtube oo ku saabsan sharuudihiisa ma doonayo balse waxaan rabaa in aan ku baro sida aad u abuuran karto janaal horumar leh oo wanaagsan ama janaal qurux badan sida aad u samaysan karto inta aan u gudigelin muuqaalkeena waxaan kaa codsanayaa daawadaha sharafta leh inaad na gaarsiisaan 1k subscribers oo aad janaalkiinoo subscribe gareysaan sidoo kalena aad muuqaalkiinoo like gareysaan waad ku mahadsantihiin saaxiib adigaba haddii aad ku soo biirto youtube waxaad jeceshahay in lagu garab istaago oo like iyo subscribe lagu siiyo marka sidaa darteed hanaga xasdin oo inoo like garee sidoo kale janaalkiinoo subscribe garee mahadsanid ku soo dhowow muuqaalkeena maanta ugu horeen marka aad rabto in aad samaysato youtube janaal waxaa muhiim ah inaad haysato wax loo yaqaano google account waxaan samaysan doonaa akoon ama gmail ayaan samaysan doonaa waxaad geli doontaa ama aad tagi doontaa google-kaaga ayaad tagi doontaa markaan google tagno waxaan ku dhufan doonaa gmailka inoo saaran aniga gmailkayga ii saaran balse gmail cusub ayaan rabaa eber ayaan ka bilaabi doonaa oo waan isla arki doonaa ilaaya waan isla samayn doonaa manage account qaybtan ay ku qoran fanaxdan yar haddaan soo furataa waan soo kacsan karaa qaybtan fanaxda ayaan soo furayaa add another account ayaan ku dhufan doonaa bartaas markaan bartaan ku dhufto waa ii soo kaci doonaa kadibna waan arki doonaa oo wuxuu dhihi doonaa securitkaaga geli marka suulkaaga fingerka waad isticmaali kartaa ama fartaada ama sidoo kale shaashadaada waad isticmaali kartaa securitka kugu xiran securitka shaashadda ayaan isticmaalay haddeer kadibna waa inoo soo kici doonaa kadib waan isla arki doonaa waana u gudiguli doonaa insha allah waxyar wuu yar wareegsanayaa kadib waxaan dhihi doonaa qaybtan ku qoran tahay create account kadibna waxaan ku dhufan doonaa for my personal use waa ku dhufan kartaa for my work my business waa ku dhufan kartaa dooqa adiga iskale gmailkan macnaha waa labada dhinaca rabtid waa ku xiran kartaa for my personal ayaa iska dhihina kadibna waxaan ku qoran doonaa first name alle magac ugu horeeyo aniga magac ugu horeeyo maxamed ayaan ka dhigi doonaa sidoo kale magac surname magac labaad ama magac aabbaha waay waad ka dhigan kartaa adiga magacaaga ayaad ku qoranaysaa oo aad magacaaga saxda ayaad gelin doontaa kadibna next ayaan dhihi doonaa next markaan dhihno kadib waxaan saxi doonaa date ama taariikhda dhalashada waxaan dhihi doonaa 15 bisha rabna ayaan dooran karnaa khasab ma ahan marka sanadka ayaa waxaa khasab ah ama fiican inaad doorato sanad weyn waxaan dooran doonaa 1999 ayaan iska dhihi doonaa sidoo kale meel ayaan dooran doonaa kadibna next ayaan dhihi doonaa markaan sidaani next u dhahno asxaabe wax yar ayaan xoogaa buuq ayaan agtay ka yeerayo iyo dulqaata oo xaafadda waa buuq xoogaa marka kadib markaas sidaan halkaan u timaado waxaan gelin doonaa wax loo yaqaano usernameka waxaan ka dhigan doonaa magaceygii ayaan ka dhigan doonaa balse number ayaan raacsiin doonaa maxamed xasan ayaan gelinayaa kadibna number ayaan raacsiin doonaa sidaas ayuu ku fiican yahay inaad number raacsiiso tusaalaan 5588 ayaan dhihi doonaa ileen waxaa la rabaa username fiican inaad samaysato xoogaa wuu yaro diiday usernamekan kadib marka waxaa samayn doontaa waxyaabo kale ayaad ku daraysaa numberskaaga ayaad kala gedin doontaa oo number kale ayaad dooran kartaa marka aad laba mar camal ku celiso oo qaadan waayo macnaha gmail waxaa lagu siinaa mid adag macnaha wuxuu isleeyahay midkaan wuu jilcan yahay oo kale mid adag ayaa asiga kuu samaynayo available hadda sidaad arkayso qaybtan cagaarka ah waa asiga ayaa ii sameeyey qoraalkan haddeer waan ku dhufanayaa shaashadoon ii soo fulay waa kahay marka wuxuu leeyahay gmailkan qaado oo isticmaal kadib waxaan dhihi doonaa next ayaan dhihi doonaa waan arki doonaa kadib wuxuu leeyahay password abuur passwordka marka waxaa rabtid ayaa ka dhigan kartaa tusaalahaan passwordkii waxaan ka dhigan doonaa
tijaabo ayaan ka dhigi doonaa. Baaswarka waxaa muhiim marka inaad nambar iyo xaraf iyo calaamada raacsisid. Okay, tijaabo markaan dhaho waxaan raacsin doonaa 1456 ayaan dhihi doonaa. kadibna waxaan raacsin doonaa calaamada loo yaqaano blasta ayaan raacsin doonaa. calaamada rabtid ayaad raacsin kartaa, khasab ma ahan inaad balaas raacsiso. Okay, halkaan markuu ku keeno wuxuu ku leeyahay nambar ku darso. nambarka telefoonkaaga ayaad ku kacsan doontaa nooc uu yahay. aniga dalaf somnet ayaan ku kicin doonaa, adigana hormuudii waxaad haysatid waad ku kicin kartaa. kadibna next ayaad leedahay. haddeer sidaad arkaysa gmailkeen waa inoo diyaar. kadibna waxaan ku dhufan doonaa qaybtan ay ku qoran tahay next. Okay, ugu dambeyn haddeer waxaan dhihi doonaa waan ku raacsannahay agree ayaan ka dooran doonaa. qoraalkan kor ayaad wadaysaa, agree ayaad kasii dooranaysaa. isla markii waxaad si toos lagu soo kicin doonaa gmailkaagii. haddeerna waxaa inoola soo diyaarinayaa gmailkii woona inoo soo furmi doonaa. isla haddeer sidaad arkaysa google surfaceka ayaa furmay oo adeegii ayaa noola fulinayaa. gmailkii aan dalbanay ayaa noola soo fasaxaya. sidaad arkaysa waa yar wareeganayaa, gmailkaaga ayaa lagu soo ogolaanayaa. isla halkan ayuu isla markii ayaan ka arki doonaa gmailkeenii oo qaybtan automatically ayaan si toos ayaan ugu soo xiran karnaa, ama si toos asiga ayaa u soo kici doonaa. waakina haddeer sidaad arkayso gmailkeenii waa inoo soo kacay, asiga ayaan ku dul dhufan doonaa. Okay, gmailkii waakina waa inoo soo saarmay, gmailkii kale wuu isbedelay. Okay, marka sideen youtube u samaystaa? gmailka iyo youtube janaalka laba ayay kala yihiin. ugu horeen ka soo noqo google-ka, kadibna waxaan imaan doonaa youtube-keena ayaan tegi doonaa. youtube ayaan ku dhufanaynaa. Okay, youtube ayaa inoo soo furmaayo. kadibna waan idin tusi doonaa qaabka aad create janaal u dhihi karto ama aad janaalku abuuran karto. Okay, marka aan youtube sidaan u soo galo, youtube oo ii soo furmay, isla markii waxaan ku dhufan doonaa qaybtan oo ka muuqdo gmailkeygii hore ee youtube-keyga. Okay, waan ka bedeli doonaa ciwaanka kale ayaan soo kicin doonaa. kan waa ciwaanka ii samaysan, midka kale ayaan soo kicin doonaa. Okay, kadibna switch account ayaa ku dhufan doontaa, wuu yar wareeganaya. kadibna gmailkaagii kale ayaa lagu tusi doonaa. waakina gmailkeenii oo no janaal waaye oo wax janaal kuma yaalo, balse kaasi subscribers ayuu leeyahay. Okay, marka uu sidaani kugu soo kaco gmailkeenii haddeer waa inoo soo kacay oo qaybta gmailkeenii ayaan toos u imaanaynaa, ku dhufan doonaa. kadibna waxaan dooran doonaa qaybtan ayaan imaan doonaa oo waxaan ku dhufan doonaa create channel meeshay ku qoran tahay ama sawirka ayaad ku dul dhufan doontaa. Okay, create channel lagu dhahay macnaha handle. meeshan waa magacii ayaa janaalka ku qoran, bas magacaan ayaad iska tiri doontaa oo janaalkaaga waxaad rabtid ayaad u baxsan kartaa. runaantii janaalka waxaa fiican inaad ka dhigato magac gaaban ayaa qurux badan. marka ugu horreyn magaca janaalkaaga markaad haysato kadib ayaad youtube samaysan kartaa. tusaalehaan anigu waxaan leeyahay tijaabo media ayaan leeyahay. tijaabo media ayaan ku qori doonaa, balse adiga magacaad rabtid waad ku qoran kartaa. tijaabo media ayaan ku qortay aniga haddeer maadaama aan tijaabaan idin tusinayo. kadibna waxaa ku dhufanaysaa qaybtan safeta ayay ku dhufan doontaa. marka aan safe ku dhufano dib ayaan u noqon doonaa. dib intaan u noqonin horta ka hor waxaan ku dhufan doonaa qaybtan ku qoran tahay create channel. create channel markaad ku dhufatid ayaa waxaa lagu soo samayn doonaa channel cusub ayaa lagu abuuri doonaa. channel created ayaa lagu dhahay. channelkii waan abuurnay. sidaad arkayso haddeer magacii buu isbedelay, tijaabo media ayaa ku qoran oo channelkii waa inoo diyaar. oo haddaan fiirino oon gudaha u galno waa no subscribers ama wax subscribers oo haysta ma jirto. waa no video, wax video oo haystana ma jiro. maalintaan sameeyey taariikhdan waad u jeedaa 12 June 2024 weeye. Okay, marka haddeer janaalkii waa inoo diyaarsan yahay. video iyo waxyaabahaasi qaabka loo soo geliyo waan ka soo hadli doonaa, iyo sida loo samaysto wax loo yaqaano banner youtube ama sida loo samaysto logo. Okay, banner youtube iyo logo haddaan wax yar idin tuso ama idin fahansiiyo, aan bedelo ciwaankaani, aan soo kaciyo ciwaankaani kale. Okay, ciwaankeena kale ayaan fiirin doonaa, ayaan kaa tusi doonaa wax loo yaqaano banner youtube ama youtube logo. Okay, sida arkayso meeshaan waa habaysan tahay, magac wuu qoran yahay, janaal wuu abuuran yahay, sidoo kale waxa uu leeyahay sabir ka soo muuqda qaybtan. marka qaybtaani sabirkaani oo cadowtiid ay ku qoran tahay qaybta sare ee sabirka ii saaran waa banner ayaa la yiraahdaa. sabirkaas yara dheer oo yara jiifa banner ayaa la yiraahdaa. marka midaana waxaa la yiraahdaa waad u jeedid logo ayaa la dhahaa. marka sida loo saarto, habka loo saarto iyo dhammaan waan ka soo hadli doonaa. haddii aad fiidiyogan xiiseynayso, aad danaynayso,
fadlan commentiga inoogu reeb si aan ugu soo hadlo qaybta xigta ee fiidiyogan. waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. inta aan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan idin leeyahay laagta iyo laga xasdin muuqaalkan. waad mahadsantihiin saaxiibayaal, sidaas iyo nabadgelyo.